أما الدل أمني جيس لوجو سوقي لها دلك كان هدا كل شغالين معي كوما صعده دريقي دلك النبات كنا قلنا لها عبد قيبديد وهري ساقي إن قرشا حسن شيخ لقيه رجليو قلمذوق وير أفكان كو قادي مدحوينها الصومالية بهشا هبر قدير ومركن باللاوذي دقدقاقي علوس ودولة مدحويني حسن لغور تغيو سي قرشاها دورشقو في عود وسن أقارين ديغانا مامولكا قلمذوق يوراركي يقودن بيي قلافك دورشدا دالكا ومركن ميلها لسا مريا qodobadaas iyo kuwa kale ayaan saaxiibayaal ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka aad daawateen oo dhameystiran aynu ku horeynay Cabdi Qeybdiid ayaa diiday hor istaagayna qorshaha madaxweyne Xasheeq ee Galmudug isagoo si cad u sheegay in Xasan uusan Galmudug ka sameyn doonin nidaam doorasho qof iyo cod ah waxaana Cabdi Qeybdiid uu noqonayaa ninka ugu weyn ee beesha habargidir ee si weyn uga soo horjeesay qorshaha dawladda madaxweyne Xasan ee ku aadan doorashooyin qof iyo cod oo ka dhaqan gala dalkan Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa diiday hanaanka doorashada ee qof iyo cod kaas oo ay dawladda federaalka Soomaaliya soo jeedisay in laga dhaqan galiyo Soomaaliya sanadka 2026 dawlad goboleedka Galmudug waxa ka dhici doonta oo kaliya doorasho qaran oo lagu heshiiyay daneeyaasha dawlad goboleedka Galmudug ayaa si wada jira uga arisan doona arrinkan ayuu yiri Cabdi Qeybdiid mar uu waraysi bixinayay wuxuu dhaleelay socdaalada joogtada ah ee madaxweyne Xasheeq Maxamuud ku tagayo dibadda ma haboona in muddo gaaban gudaheed dalba dal loo safro waxaana ugu baaqaya labada gole ee baarlamaanka inay feejignaadaan oo ay u kuurgalaan jidka qaldan ee Soomaaliya cagta saartay ayuu yiri Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid Senator Qeybdiid oo horay u soo noqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa sargaalkii ugu horeeyay si cad uga soo horjeesta hanaanka doorashada ee muranka dhaliyay ee dawladda madaxweyne Xasan ay wado dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in hanaankan ay ka dhaqan gelin doonto qayb badan oo kamid ah dalka iyadoo laga reebay dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo maamul goboleedkii ugu horeeyay ee diiday hanaan doorasho ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadalka Qeybdiid ayaa imaanaya iyadoo dawladda federaalka ay wax walba u sameynayso sidii ay doorashada u dhici lahayd oo ay ku jirto kordhinta muddaxileedka hogaamiyaasha dawlad goboleedyada taasi oo ay ku tilmaamtay tallaabo galmaan u ah horumarinta dib u habeynta doorashooyinka iyo gudbidda nidaamka hal qof iyo hal cod ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaana xaqiijiyay in qorshahaasi hadda uu socdo muddo kordhintu waa tallaabo lama huraan ah oo laga weecinayo hanaanka doorasho ee dadban kaas oo ku saleysan nidaamka beelaha isla markaana aan ku dhaqmaynay muddo haatan laga joogo 7 sano ayuu yiri jaamac siyaasiyiinta ka soo horjeeda hanaanka dawladda ayaa wali walaa xoogan ka muujiyay waqtiga loo qabtay iyagoo ku adkeysay in khilaafyada siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood kuwaas oo aan xal rasmi ah laga gaarin ay sababi karaan dib u dhac kale ama xitaa in ay horin karaan colaado hor leh oo dalkan Soomaaliya ka dilaaca waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Cabdi wajahayaa loolankii ugu xooganaa abid ee dhanka siyaasadda ah iyadoo inta badan horweynta beesha habargidir ay si toos ah isaga diideen hirgelinta qorshaha doorasho ee ku fakirayo madaxweyne Xasheeq Maxamuud iyo dawladdiisa waxaana in badan siyaasiyiinta beesha habargidir ay hadda wadaan hubarusi iyo in dagaal siyaasadeed la galaan madaxweyne Xasan iyadoo si la mid ah wixii dhacay xilligii farmaajo oo kale ay mar kale rabaan in ay sameeyaan taas oo hadda u muuqato in hubanti la'aan siyaasadeed iyo xaalad kale oo culus dalka u gelin doonto Cali Yara ayaa dhankiisa yiri Cabdi Qeybdiid haddaan maamulada maqan Puntland iyo Jubbaland la keenin Galmudug doorasho laga qabanayo arrimaheeda ayana u tashanaysaa horta ayaan dhexe waa tii madaxweynuhu mar uu Senator Muusudi oo tabasho qabay oo aqalkiisa ugu tagay talo Senator Cabdi Qeybdiid isagana inuu ugu tago ma laga yaabaa maadaama ay kala yihiin labada oday ee koonfurta iyo waqooyiga magaalada kala matala mise waa booqasho waqooyiga Muqdisho oo ku eegay yiri mar uu arintaasi ka hadlayay sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday sida ay siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo dawladnimada ay saameyn isugu leeyihiin taariikh ahaan dawlad kasta oo Soomaaliya yeelato iyo madaxweyne kasta oo dalku yeesho waxay shaqeyn karaan oo kaliya hadba intii ka horeysa intaanay beesha governor Saad mucaaradin dawladdaasi haddii ma jarteen horay u sii mucaaradayna kaba sii daran la taariikh ahaan ma jarteenku mucaaradada ayay bilaabaan laakiin awoodda itaalka dhameystirka iyo ciirinta madaxweynayaasha waa saan Saad u gaara oo ay ku suntan yihiin ka soo bilow halkii cod ee Xaaji Farax ee aadan cade lagu riday
kusoo xiji halgankii dhuumoodle ee ilaa mustaxiil iyo farjano ee maxamed siyaad lagu riday cali mahdi saddex uga dhig xitaa ciidiid oo madaxweynihii salbalaar ahaa ha ka reebin cabdiqaasin oo wixii loogaa lagu dhigay ilaa farmaajo oo rooble ee loo isticmaalay inkasta oo intaasoo dowladood waxay dowladdan xasan sheekh dheer tahay in ay iyadu dandaansatay beesha governo xaasaskoodii iyo ilmahoodii barakicisay oo ay beesha sacad maanta qaxooti ku tahay dowladka muqdisho sacadkiina iyaga oo aan matalaad lahayn ay idaacadaha u dacwoonayaan ciidiid garaad oo dhintay agost 96 sidii uu janankii maqlayo oo kale sacad wax kasta oo kale ku sameey laakiin haweenka iyo carruurta dhankooda lagama maro nin taariikhdooda garanaya jidkaasi ma qaado ninkii qaadana malaha waa mid aan garanaynin kaalintii hormuudnimada oo ay halgankii SNA ku lahaayeen qorshihii sidoo kale Faarax Maryan Dagaari Xaawo Cartan waa hooyadii furaha madaxtooyada ku wareejisay dowladii 2007 ee wareysigii ku sheegay Cali Maxamed Geedi iyo Cibaado Dhooley sidoo kale dowlad kasta waxay jiri kartaa inta sacad ka mucaaradayo ayuu yiri Cali Yare oo arintan si toos ah uga hadlay sidoo kale wuxuu ka hadlay oday mudullood ka tirsan oo isagu si weyn u dhaliilay Cabdi Qaydiid iyo inuu xilligan mucaarado dowladda madaxweyne Xasan odaygii wiifowga Daarusalaam in la saaro ku qanci jiray oo senator Cabdi Qaydiid u jawaabaya ayaa goordhow idaacadaha ka yiri adigu sacad ayaa tahay aniguna abgaal rabbi ee jannadiisa hageeye lajinkii Soomaalida qarnigan ka soo baxay abwaan sooraan ayaa laga diiwaan galiyay allahayo magaalada maxaa wax isku muuqdaan oo hadii senator hadlo ma oday beeleed ayaa u jawaabaya oo dowladda ayaa mid beeleed ah horta hooley halkee ku dambeeyay ayuu isweydiiyay waxayna hadda u muuqataa inuu bilaabanayo loolan siyaasadeed oo u dhaxayn doona beelaha Habargidir iyo Abgaal sida ka muuqata saasaanta dagaal iyo qorshe hadda socda taasoo saameyn culus ku yeelan karta geedi socodka dowladnimo iyo nidaamka dowladnimo ee dalkan Soomaaliya ugu dambeyntiina qorshaha siyaasadeed ee madaxweyne Xasan iyo doorashadiisa ayaa markan halis weyn wajahaya xilli doodo culus ay hareeyeen nidaamka doorasho ee dalkan uu guurayo inta badan xubnaha mucaaradka ah ayaa ka diiday madaxweyne Xasan iyo dowladdiisa in dalkan uu kiirgeliyo doorasho qof iyo cod ah oo aan heshiis lagu ahayn taasoo asalka dambe ee ku biyo shubaysa in dalkan uu jihayso nidaam doorasho oo dhibaato culus ay ku geysiin karto dowladnimada Soomaaliyeed Cabdi Qaydiid iyo xubno kale oo Habargidir ah ayaana hadda bilaabay qorshihii ugu dambeeyay ee dowladda madaxweyne Xasan awood ciidan looga hortagi lahaa damaca siyaasadeed hadda ay ku jirto saaxiibayaal wanaga inta urarkii ugu dambeeyay xaaladda waddanka nabadgelyo